بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. kusoo dhawaada Shaaci Company iyo buuggeena la magac baxay 114 fikrado ganacsi. Fikradahan oo dhammaantood lagu aasaasi karo ama lacag la'aan ama lacag aad u hooseysa lagu aasaasi karo. Waxaan ahay magacaygu Ciise Shaaci, waxaan ahay aasaasaha iyo qoraaga buugga kan. Insha Allahu tacaala waxaynu isla qaadan doonaa fikradahan mid mid baynu iskula qaadan doonaa insha Allahu tacaala. Dhammaantoodna waa fikrado la dhaqan gelin karo sanadadan insha Allahu tacaala. Inaan noqotona kuu suuragelinaysa sanad horumar iyo barwaaqo iyo horu socod ku horseedi doonta noloshaada iyo ta bulshadaada intaba. Waayahay fikradahan waa fikrado ideooyin business waaye oo low startup cost u baahan ama dhaqaale yar u baahan. Waxaynu kuuga hagi doonaa insha Allahu tacaala fikradahaasi habkaad u dhaqan geli lahayd ugana dhigi lahayd mid guulaysata ayaynu isla arki doonaa insha Allah. Wuxuu ka kooban yahay 13 cinwaan ayuu ka kooban yahay buuggan ama 13 fikrado waaweyn mid walbana waxaa hoos imaanaya ilaa 10 ilaa 7 fikradood 7 ilaa 10 fikradood ayaa hoos imaan doona. Ugu horeyn waxaynu ka hadli doonaa online business maxaa la yidhaahdaa, profitable digital business muxuu noqonayaa. Labadaas laba ayaynu u qaadan doonaa insha Allahu tacaala. Labadii programba mar ayaynu soo diri doonaa hadduu Alla ugu horreyn waxaan qaadanaynaa ama videogan ugu horreyn wuxuu noqon doonaa online business idea ayuu noqon doonaa. Waxaynu xigi doonaa profitable digital business ku saabsan faa'iido leh oo digitally lagu aasaasi karo faa'iido leh. Waxaa xigi doona profitable home based service business adeeg gurigaaga adigu joogaa qaban karto. Iyadana waxaanu xigi doonta food and beverage business ku aadan cunooyinka cabitaanada. Waxaynu xigi doona retail and resale business in alaabta faariiq aad ku sii iibiso ama alaab inaad service ka sii iibiso. Maynu ka tagin sidoo kale agriculture ama beerihii iyo xoolaha kama tagin. Iyadana businesskaas sida looga faa'iidi lahaa waynu soo arki doonaa. Waxaa meesha ka marnay number 7 health and fitness business ku aadan caafimaadka iyo jirdhiska. Sideedaad wuxuu noqon doonaa education and training business ku aadan waxbarashada iyo tababarida ku aadan. Number 9 wuxuu noqon doonaa home decoration business ku aadan oo decorationkii iyo qurxintii guryaha ku aadan. 10 waxaa waaye business ku aadan dalxiiska iyo dalxiisada Soomaaliya ku aadan. 11 wuxuu noqon doonaa home and property business ku aadan guryaha iyo waxyaaba la halmaala. 12 wuxuu noqon doonaa transportation and delivery business ku aadan isgaarsiinta oo gaadiidka. 13 waxaa waa special offer khaas inoo ah aan ugu talagalnay inaan bulshadana Soomaaliyeed sanadadan inaan dhaqan gelin karaan una noqon doonto insha Allahu tacaala sanadadan sanad u horseedi doonta guul iyo horumar insha Allahu tacaala. Haddaynu guda galno qodobkan ugu horeeya ama part 1 waxaa weeye online business idea ku aadan online-ka waaye. Waxaan u dooranay marka maxaa la yidhahdaa online business idea guulaysan karta ayaynu insha Allahu tacaala isla qaadan doonaa. Taasoo u baahan keliya qofka ugu baahan smartphone ama laptop iyo internet bas bay kaaga baahan tahay, wax kale ay kaaga baahan tahay baashatan ma jirtaba. Ugu horeyn businessda noocan oo kale in la aasaasa maxay muhiim tahay? Waxay muhiim tahay ugu horeyn lacag badan kaama rabto. Xilliga aad doonto waa qaban kartaa. Dalabkeedana waa u badan yahay. Adeegeedana waxaa weeye mid scalability leh oo la sii horumarin kara. Bilow wax yar inta ku bilowda ayaa sii kobcin kartaa. Waxaad u baahan tahayna waxaa waaye laptop ama mobile smart internet connection. Xirfadahan mid ka mid ah inaad taqaano mid baad u baahan tahay. Maanta haddii ay xirfadaha taqaano marmarsiyo ah ma jirto inaad horumar ama shaqo aad bilaabayso wax ah marmarsiyo ama wax ka horsaaga haba yaraatee ma jiro. Businesska ugu horeeya wuxuu noqonayaa waa business ku aadan WhatsApp marketing service. Adeega kan waa adeeg aad iyo aad muhiim u ah dalkan aan ka jirin. Qofkii niche-kan ama business-kan bilaabana heli kara sidaan aaminsanahay insha Allahu tacaala. Dad aad u badan iyo customer aad u badan soo keeni kara ayaan aaminsanahay. Ugu horeyn businesska noocan waa maxay? Waxaa waaye inaad ka caawiso ganacsiyada inay diraan bulk promotion aan SMS via WhatsApp. Waxaan aragnaa marka xayeysiimo la sameynayo in shirkad marka xayeysiin rabto inay sameyso inay shirkadaha isgaarsiinta waaweyn inay tagto ee ku tiraahdo maxaa la yidhahdaa SMS igu dira dadka intaa gaarayo. Laakiin adigu inaad suura geliso ina adigu dadka aad u dirto message, laakiin messageka caadiga maahane WhatsApp inaad ugu dirto. Sidee kugu suura gelaysaa? Number 1 wuxuu qofku u baahan yahay contact badan, dad badan inuu hayo. Contact ayuu ka keenayaa. Facebook ayuu lead garayn karaa ama Facebook dad badan ayuu ka keeni karaa.
oo maxaa la yidhahdaa u promote gareeyo offer ku hayo mithaal ahaan oo kale dad haddii aad keento Facebook aad dad badan oo leaded aad samayso dadkaas tusaale ahaan oo kale dad gaaraya 1,000 qofood baa haysaa ee danaynaya marketka doona ha noqoto market cayiman bay danaynayaan tusaale ahaan waxay danaynayaan caafimaadkay danaynayaan waxaa u tagi kartaa isbitaal kamid tagto ayaa waxaa dhigi kartaa aniga 1,000 qofood oo danaynaysa arrimaha caafimaadkana haya waxaan rabaa marka inaad adeeg aad haysaan aan u diro si ay uga faa'iidaan idinkuna aad uga faa'iidaan marka meeshaas ayaa business ka samayn kartaan waay haddaba tilaabada u baahan lagu asaasi karo maxay noqonaysaa number 1 businesska baahiyaha marketing serviceka u baahan yahay soo ogow muxuu u baahan yahay mithaal ahaan kale maqaayad baad tagtay muxuu u baahan tahay isbitaal baad tagtay wuxuu u baahan yahay soo ogow then waxa uu u baahan yahay de business customer aan u baahnay ma jiro business customer u baahan yahay customerkaas muxuu u hayaa baan ogaanaynaa then wuxuu u hayaa markaan ogaano ayaan waxaan u promote garanaynaa bulshada ayaan u promote garanaynaa waxay u baahan yihiin waxay u hayaan u promote garanaynaa ama waxay siinanaa waayahay get WhatsApp business API ama bot messaging tools waxaad samaysataa WhatsApp business ay samaysanaysaa adigu si jumlad ahaan ama si gruuba aad ugu diraysid dadka messageka ugu diraysid marka dadkaas messageka aad u dirayso baakijyada qeybaha ku qabanayso weekly inaad u qabato isbuucli inaad u siiso kadibna xayeysiinta u samaynayso social media waxaa mar walba muhiima business ID walba oo aan soo sheegno waxay u baahan tahay in xayeysiin dhanka social media inay hayso muhiim ah marka aaninka meeqa camal businesska noocan ka samayn karaa waxaa ka samayn kartaa ama aad ku xiri kartaa campaignka aad samaysaba waxaa ugu samayn kartaa ayaa ugu dhufan kartaa mithaalan kale 1,000 qofood haddii aad hayso aad ku tiraahdo message baan kugu dirayaa $100 keliya samay $100 keliya bixiya $100 inay bixiyaan oo 1,000 qofood messagekooda si toos u gaaro waxa aad iyo aad muhiim u ah way orod bay ku bixinayaan adigana waxa waaye $100 inaad businesskaas dadkaas aad lead garaysa $100 bes aad ku shaqaraysa dadka kan waxaa suuragal ah in mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad aad u promote garayso serviceka ay hayaan ama shirkado badan oo kale caafimaadka ama industry marka ay u xayeysiinaysa inaad u xayeysiiso pointa on the line marka waxaa weeye businesskan lama taabanin oo micnaheedu waxaa waa Soomaaliya inta badan kama jira waxay qofkii bilaaban waxaa waa businesskan wuxuu ka keeni karaa natiijo aad wanaagsan waayahay waxaan isla arki doonaa